xildhibaano kale raba adiga haddaan rabin xildhibaanada kale rabaan qofka aan rabin lama haysto xildhibaanada rabo kuwaas waxaad u malaysaa maanta baarlamanka naga inuu yahay ciyaal weero mana aha dhaqan naga aamusa warya halkanis dhegaysta halkaan in la soo turto aan iguma orin kartaan iguma orin kartaan iguma orin kartaan waa idin dhegaystay jadwalka aad sheegaysaan ra'iisul wasaaraha waxaa u yeeray guddiga joogtada 12 bisha baarlamaanka Soomaaliya wasiir oo shaqada ka iriyay shaqadiisa qabso waayo ma aragta hal markeen 3800 baa la qaataa wiliga ma maqashay baarlamaanka Soomaaliya oo aafo ama musiibo dhacday lacag iska soo aruuriyay 4 sano 3800 dhuuqaay lacagtaas wadaadka xalaalay karo ninka shanta iliraada ayaa diyaar u ah xildhibaanada lacagta qaata xaraan bay ku qaataan ha ogaadaano wasiirkii amniga Doodisho gudoomiyihii baarlamaanka fasaxay markii la waayay xisaabtankii iyo ulajeedadii iyo ajandihii loogu yeeray baarlamaankii uu ka qabsoomi waayay warka qabso waa waruna saxaafada xurta noo sheegtay markii la yiraahdo ugu dambeyn 9 la rabaa 11 soo xaadiraan 11 aan ku macneeyo waa 5 saac 11 markay yimaadaan sawaxan iyo isqabqabsi dhexdooda iyo buuq iyo maaragtay qofka kale inuu ku dhago in la iscaayo in yaani tashbiiliinkii xildhibaan Soomaaliyeed laga rabo in laga tago ayaa loo dhaqmaa bismillaah wassalaatu wassalaamu ala rasuulillaah wa shantaay oo bulshada muslimka inta ku hoolan talada ilaahay Allah waxaan weydiinayaa maalintan inuu Allah nii barakeeyo kiina xanuunsanna Allah caafiyo xaasaska iyo caruurta oo bulsho walba lafdhabar u ah Allah inuu nii barakeeyo maanta waxaan rabnaa inaan ka hadalno wixii taagan baarlamaanka Soomaaliya iyo guud ahaan siyaasadda Soomaaliya iyo dawladnimada aan rabno ma dhawa baarlamaanka Soomaaliya saddex u qaybsamaa qayb baarlamaanka u timiday dhuun iyo caruurtooda inay ku korsadaan caruurtooda waxbarasho sare inay helaan sida Turkiga iyo Qatar inay wax ku bartaan aad u jecel ama dalka dibadiisa qayb labaad siyaasadda waxay u soo galaan magac inay ka sameeyaan taariikh nololeed inay ka tagaan qaybna waxay u soo galaan inay wax bedelaan annaka marka waxaan quseeyo qaybta rabto inay wax bedesho qaybta rabto tacadiga iyo takrifalka iyo dulmiga iyo boobka iyo xatooyada xoolo umadeed ay maanta taagan dadka raba inay la dagaalamaan ay dadkaas ay biri ka naqdaan baarlamaanka Soomaaliya qaybta ugu xun ee loo baahan yahay in ummadda laga qabto ama la xisaabtamo amba beelihii ay matalayeen la yiraahdo kaynsada cid baarlamaanka Soomaaliya niigu bedesho matasho ayakana la iriyo waxa kamid ah xildhibaanada qaarkood markay ay dhikaarka qaataan dhikaarka xildhibaannimo markay helaan ay qoorta gashtaan oo doorashada gudoomiyaha baarlamaanka la doorto oo doorashada madaxweynaha la doorto oo golaha madaxweynuhu oo ra'iisul wasaare soo magacaabo ra'iisul wasaaraha golaha baarlamaanka la horgeeyo ansixiyaan ila soco golaha wasiirada ay iska dhaxwaayaan maalinkaas baa waxa ugu dambayso inay soo xaadiraan golaha shacabka lacagta ay qaataan ay saxaafadda xurta dad aan ku kalsoonahay ay noo cadeeyeen 3800 bay qaadaan waxa kaaga daran gunday u doodayaan dalkii maanta koonfur galbeed dhibaata ka taagan baraabe dhibkaad aragteen baa ka dhacday
guddoomiyihii maxkamadda ciidamada shuutaa tegey adigu xal baa loo helay laascaanood iyo sool maanta dhibkaad aragtaa ka taagan December dagaalkii bilowdaa weli socdo waa lagu baaba'ay waa lagu hoobtay meelihii qaar xalaya ugu dambaysay dadkayna dad ka mida oo walaalahayn ah oo Soomaaliyeed suuqii ugu weynay magaalada Jigjiga ayaa dambas naqday waxaa taa kaaga daran oo raba inaan kaa dabageeyo nimankan baarlamaanka Soomaaliya xildhibaanada markii la yiraahdo oo guddoomka baarlamaanka oo fariin u diro ay la yiraahdo birito waxaan ila rabaa 8 ugu dambeyn 9 horta waxa u balama 11 soo xaadiraan warka qabso waa war runa saxaafada xurta noo sheegtay markii la yiraahdo ugu dambeyn 9 ila rabaa 11 soo xaadiraan 11 aan ku macneeyo waa 5 saac 11 markay yimaadaan sawaxan iyo isqabqabsi dhexdooda iyo buuq iyo maaragtay qofka kale inuu ku dhago in la iscaayo in yaani tashibiliinkii xildhibaan Soomaaliyeed laga rabo in laga tago ayaa loo dhaqmaa waa mid maanta taagan xildhibaankan waxa la yiraahdaa xildhibaan Shariif baarlamaankii Soomaaliya asagoo hor taagan ayuu wuxuu ku qaaday weerar afka waa xildhibaan ninka u jeeda xildhibaan Shariif baa la yiraahdaa waxaad u malaysaa maanta xildhibaan baarlamaanka naga inuu yahay ciyaal weero mana aha dhaqan laga aamuka wariya fakanis dhagaysta halkan in la soo turto xildhibaanada labaad xildhibaan rooda la yiraahdaa codkeedii markay sugtay ay la soo gaaray xilligii ay ka hadli lahayd afkaartii iyo waxay iida rumaysneed amba jantihii ay la soo gaaray hadalka inay iida qaadato baarlamaanka intii kale ka hadli weysay xildhibaan roodo oo baarlamaankii Soomaaliya hor taagan oo aad isku difaacaysana waa tana idan marka waxaas maxay noo cadeynayaan waxay noo cadeynayaan ina ummad loo maqnayn dal in loo adeega aan la ogolayn isla xisaabtan dhaba inaan la ogolayn wasiirkii amniga Doodisho guddoomiyihii baarlamaanka fasaxay markii la waayay xisaabtankii iyo ulajeedadii iyo ajandihii loogu yeeray baarlamaankii uu ka qabsoomi waayay guddoomkii baarlamaanka marka wuxuu leeyahay annaka aan isa saxno wasiirka waan fasaxayna waa buuq hareeyay baarlamaanka Soomaaliya yani 3800 baa la qaataa wiliga ma maqashay baarlamaanka Soomaaliya oo aafo ama musiibo dhacday lacag iska soo aruuri bal halay keeno baarlamaanka Soomaaliya ay wasiir oo shaqada ka iriyay shaqadiisa qabso waayo ma aragta hal markeen baarlamaanka Soomaaliya sidaan naqiinay dadka qaar ajeebka gashto siday rabaan ay u hagaan waxa rabaa marka haday naqato marka in adduunyo kaliyeed laga fikiro umaduna way baabaa dalkuna waa baabaaya nabigu sallallahu alayhi wa sallam wuxuu xadiis ku leeyahay inna likulli ummatin fitnatan wa fitnatu ummati almaal inna likulli ummatin fitna ummad walbo waxay lahayd fitno iyo waxyaabo u gaar ahay oo lagu fitneeyay wa fitnatu ummati almaal ummadayda fitnadeydane waa maal xoolo jicli sidee xoolo lagu sameeyaa sidee abarmatiyo loo dheer loo dhistaa sidee gaari buruuf loo gataa dadka barakacaya ee maanta dalka dibadiisa qaxa ku ah ay wadamadan diriska aan nahay daadsan ay dhadhaab kow ka tahay ay xirada ifa ay ku jiraan ay yani iyo kuwa maanta Yurub iyo Mareykanka ku nool ay maanta adduunyo helay ay waxbarasho helay ay nolol fiican helay
ay ubadkoodii maanta ka baqaaya in la qaniiseeyo oo maanta hamigooda uu yahay inay dalkoodii ku soo laabtaan nolol amni iyo dowladnimona inay helaan jecel weli murugtii waxay la joogaan yurub iyo maraykan dalku dal la isku aamini karo ma aha maanta bulshadayna anshixi bulsho muslima laga rabay laba hayo ha sugin dowlad u taagan dadka ku hoolan anshax xumada iyo dhaqan xumada iyo wax kastay shareecadu islaamku la dagaalamta shareecaduna ay fogaysay shareecaduna ay tiri ha la iska reebo dadka la jahraaya ay banaanka la imaanaya ay ummadda iyo xiriirka baraha bulshada ku faafinaya dowlad iyo hay-ado amni oo inta u yeera la xisaabtamaya ay dhahaya waxaan kuga haysanaa dhaqan xumo wax shareecada islaamka iyo dhaqanka ummaddan iyo dowladnimadan lid ku ah oo gaf ku ah ayaa la timiday waa kan oo dimigiisa ku qaadayo ma hayno maalin walbo waxaan haynaa wax ka baxsan anshaxumada diinta islaamka dhalinyartayni wixii 30 sano ka yar ayaana ku kaca gabdhihii iyo wiilashii marka waxaan rabaa inaan cod dheer ku dhaho baarlamaanka Soomaaliya waan ogaho niman aqoon-yahanaha ku jiro waayo wadaadka xildhibaanka shantay kala doodi kara ninka xildhibaannimo ku qaadanaya 3800 ay maalinkii ay dhikaarka oo qoorta gashtay ay guddoomka baarlamaanka la doortay ay madaxweynaha la doortay madaxweynuhu ra'iisul wasaare soo magacaabay 30 maalmood kadib ra'iisul wasaarihii golaha baarlamaanka la horgeeyay golaha baarlamaanka ay ra'iisul wasaarihii ansixiyeen ra'iisul wasaarihii markuu golihii wasiiradiisii oo soo magacaabay xildhibaanka inta iska dhex waayay dibad fadhiistay 3800 na qaato dowladda maanta madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo odayga ka yahay muddo xileedkiisu markuu gabagabay yahay inuu isa soo sharxad doonaya ay beeshiisa mar labaad dhahaya xilka isiiya ay dibad fadhiistay ay deegaankii oo ka yimid aan ceelbiyood geynin ay meel yaroo haweenka xaamilada iyo hooyada iyo dhalaanka daawo yar iyo lagu badbaadiyay aan ka samaynin dugsi hoose dhexe sare ay agoonta iyo danyartu ay wax ku barataan aan geynin ay 4 sano 3800 dhuuqaayay lacagtaas wadaadka xalaalay karo ninka shantay yiraahdo ayaa diyaar u ah Somali Cable amba Risala TV aan iskugu imaananiga asaga insha Allah taala xildhibaanada lacagta qaata xaraan bay ku qaataan ha ogaadaano. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.